golaha wakiilada Somaliland ayaa xadda 3 November cod gacantaaga ku diiday in la ansixiyo xeerka macdanta Jamhuuriyadda Somaliland oo muddo dheer hor yaalay golahooda si ay waajibaadkooda dastuuriga ah uga gutaan. Fadhigan golaha wakiilada Somaliland oo ay ka soo xaadireen 59 xildhibaan isla markaasna uu shir gudoomiyaha golaha mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa waxa xildhibaanadu codka diidmada qayaxan ay kaga soo horjeesadeen in la meel mariyo xeerka macdanta Somaliland iyagoo ku sababeeyay in xeerkan ay wataan shirkado iyo shakhsiyaad gaaray sidoo kalena aanay xeerkan ansixintiisa wax dan ah ugu jireen Somaliland. xildhibaan Faarax Maxamuud Cabdulle Faarax Dheere oo kamid ah xildhibaanadii diidana ansixinta xeerka macdanta oo codayntaasi kadib la hadlay codka bariga Afrika ayaa ku dooday in aan wax saamin ah lagu sameyn macdanta ku duugan dalka taas bedelkeedana xukuumaddu iyada oo aanay haynin xadiga iyo goobaha rasmiga ah ee macdantu ku duugan tahay dalka ay heshiisiyo la gasho shirkado aanu magacaabin golahoodana aan loo gudbin nuqulada heshiiskaasi ka kooban yahay sahamiyay oo meesha lala gelayo heshiiska sahankeedu cad yahay in heshiiska lala galo dalkii oo aan la sahamin dalkii oo wax ku jira aan laga warhayn baa heshiis miran la gala heshiiskiina golahan lama keenin waxa ka dhalan kara heshiiska aad sheegtay yaase lala galay waxa lala galay NGO-yo ay wasaaraddu samaysatay baa lala galay ma aha dad maalqabeena ma aha dad waxyeelada iska bixin kara waxay guranayaan kama warhayno buuro dhan baa iminka waxa la isaga helay marka cid gaara xeerkani markaan isku soo ururiyo cid gaara buu daryeelaya gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ayaa codayn duuduub ah oo la geliyay ansixinta xeerkan ayaa sheegay in ay diideen in xeerkan la ansixiyo 28 xildhibaan 18 kalena waa ay ogolaadeen in sidaas lagu ansixiyo halka 12 kamid ah iyaguna ay ka aamuseen waxaana uu gudoomiyo ku dhawaaqay in sidaas uu ku buray ansixinta xeerkaasi macdanta Somaliland si kastaba ha ahaatee waxa xusid mudnaa in waqtigii uu socday codaynta xeerkan ay xildhibaanadu si weyn ugu kala aragti duwanaadeen ansixinta xeerkan sidoo kalena uu golaha ka dhashay buuq iyo sawaxan sababay in qaar ka mid ah xildhibaanadu ay faraha iskula tagaan xamse xirsaxayd wararka lanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika magaalada Hargeysa.